guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba. Waddanka Mareykanka waxaa jira maahmaah dhahaysa guri waa meesha qalbigaaga uu yaalo. Dad badan oo Mareykanka ah ayaa waxay waqti aad u tiro badan iyo lacag ay geliyaan si guryahooda u hagaajistaan. Way rinjiyeeyaan, way qurxiyaan, fiyoorag ayay ku abuuraan oo sawirro ayay suraan. Isku celcelis qoysaska Mareykanka 7 ama 8 saacadood ee 10 saacadood ee kasta waxay ku lumiyaan guryahooda dhexdiisa. Taa waxay macnaheedu tahay in hawada ay neefsadaan iyo waxa ay taabtaan ee guryahooda dhexdiisa ay si xal leh caafimaadkoodu u saameyn karta. Caafimaad wanaagsan waxay ku xiran tahay guryo caafimaadaysan oo ammaan ah. Guryo iyo caafimaad micnaheedu waa in guryo si wanaagsan loo dhisay, si wanaagsan koronto u isticmaala, la awoodi karo oo lagu nasto oo si wanaagsan gacan loogu hayo. Gurigaaga waxaad ka dhigi kartaa guri caafimaadaysan adiga oo tallaabooyin dhowr ah qaada. Gurigaaga meel qalal ha noqdo. Meelaha biyaha ka taslaya iska hagaaji oo caarada boorka ha u ogolaan inay korto. Saqafka kore ee guriga iska nadiifi si biyaha saqafka ay si habboon guriga biyaha dushiisa uga soo da'aan. Gurigaaga nadiif ha kuu ahaado. Busta ka nadiifi. Hufaha qashinka in badan marmari. Wixii qashin ay isdhex yaacsan ka taqallus. Hawada gurigaaga ku jirta ha noqoto mid socota. Maalmaha ay hawadu fiican tahay dariishadaha iska fur. Haddii ay leedahay shabaq, dhilmaanyada iyo tixsiga aad uga hortagayso in guriga ay soo galaan, isticmaal wareejiyaha hawada si gurigaaga ay hawo cusub u soo gasho. Guriga ka fogee xayawaanka lalabaayada iyo meelaha boqboqa guriga iska xir si cayayaanka aysan guriga u soo gelin. Cuntada si sax ah afka uga xir oo meel fiican dhig oo aan sagxad ahayn. Weel ama sanaadiiq afka ka xiran iyo in wax lagu qabto u dhig cayayaanka guriga haddii loo baahdo. Gurigaaga ha ahaado guri ammaan ah. Daawooyinka iyo wixii kiimika ah ha ku jireen weel ay ku yimaadeen oo ku xir sanduuq ilmaha yarka ah aanu gaarin. Guriga ku dheji qalabka qiica iyo hawada sunta carbon dioxide sheega. Qalabka dabdamiyaha gurigaaga soo dhigo. Meelaha wax la saarto derbiga kula qabo si aad uga hortagto in wixii saaraa ay soo dhacaan. Makiinada biyaha kululeysa ee derbiga kula qabo oo markastaaba wac shaqaale xirfad u leh soo gelinta ama cilad bixinta waxyaabaha korontada, biyaha, gaaska ama dhuumooyinka iyo bulaacadaha hoos mara dhulka oo qaada saxarada. Gurigaaga ka fogee waxyaabaha sunta gaarsiisan, sunta radon, sunta cayayaanka, sunta liidka ee ka timaada rinjiga ayaa oo caafimaadka halis u ah. Kala hadal waaxda caafimaadka ee degmadaada ama jaamacadda Missouri xafiiskooda bannaanka si aad uga hesho talo ah sida sunta looga takhaluso. Gurigaaga ha ahaado guri dhowrsan oo maskaxdu ku degto. Iska dayactir waxyaabaha halaysan guriga dhexdiisa ka hor inta aysan ka sii darin. Daryeelista gurigaaga waxay u muuqataa hawl aad u badan, laakiin waxyaabo yaryar in la hagaajiyo oo guriga dhexdiisa laga nadiifiyo maalin kasta waxay kaa caawinaysaa inaad waqti dheer aad la noolaato nolol caafimaadaysanna aad ku noolaato. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas faya qaba iyo adiga oo faya qaba.